بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة بيرها وزير دولها وزير كحيجينك تريها عندما البوليس الصومالية مسؤولين تكله حلبان له تاجرية شينا ماذا شينا للشورى هايلها كلا دوان يسفير له هي خاصة بيرليد الصومالية يبهذا بيرليد أما هالنقطة كتبعية ينبذ الستة أما كفرسما يغان أما كمال قشرها دمانتنا توحدكم السلام يا الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة ما أنت إنه يسوون لي وحيلة هي اللبوج مر واد البلدك يسبقالين مرنا وإسبرالوشين إسحسوسين أي إسحسوسين إنه ظروفها يواجه دقلك يدلك إنك تشرا إلا ربا وزارة دنيني كتشوات ساكا شربان كتشون أنو كجا شواب إنه لباتوين كا لسه درسي بالشوين تقولن معمول قبلت كهير شبله خاصة دجاجنا الهيران هي سيدي أي هايلها كالدوان الدولة دوجا شواب الهايل بايه هو الكالدوان رئيس الوزراء هو نبوا أمرين عنه أهلتها حكر سوق بنا ضرر الشركة أنو كتشوفي وأنو كجا شواب إنه سيدي 7 مليون أو صوماليات أو حريص سقوط شراء عنتيري هي أبار راكتي هي أفرقوا أو روك ودي واي وحلاقة قبلنا مركا هل كان مانتا إن إذن لنا دبال ديبو إذن نبراروتشي أو بالوحي إن السوغي إنتي لقي هنا أن يسلم بالدقنا بانوي وزارة بيرو ووزارة يدا يتربيها يتحنانة حولها ووزارتها وضبطحات قوة سلوغة شواب باهيها كالدوان إيدتكينو أي قوان gudaha waynu ka dheregsanay waxa ka jira bal adduun weynihi aynu qaybta ka ahayn aynu boqolkiiba 70 cuntada ka soo dhoofsan jirnay isna muxuu ku sugan yahay wax iska dharahan dalka Ukraine waa dalalka daqiiqda iyo maarkaysaay sareenka iyo waxa aynu soo dhoofsanay ugu badan adduun weynaha u dhoofiye colaad baa ka aloofsan meel wax soo marayna walaayi لكن واحد ربنا بيرلي ده الصوماليين أنا من الحساسية وضميرنا هل كانوا تاجنايو يسقى أفكار كوه اللي نمان كاس ظروفها يكون شقيان هذا درجت إيه ده الصواريخ إيه بمبلا إيه ضيورة ده الدجال إيه هوك وعرس له استعمال أي دين بيروه دين يكتجان وأي بنيان دولة دين أي كبر براها ظروفها oo kale ayay beeraleyda Soomaaliyeed ku shaqeynayaan oo cadow ayaa haysta marka adduun weynihii aynu boqolkiiba 70 wax ka soo dhoofsan jirnay Pakistan oo bariiska iyo waxyaabo fara badan laga soo dhoofsado daadad baa ku dhufto iyagiiba loo gurmanayay Ukraine xaaladeeda wad ogtihiin China-na iridihii la xidhatay oo waxay tir cuntadii annaga ma naguma filan dhoofin mayno horta adduunkii ama aynu wax ka soo yeemosin jirnay ama wax ka iibsan jirnay saasuu u ekaaday waxaana saldhig u ah colaado cudurro iyo arrin intaaba ka weyn oo la yiraahdo isbeddelka cimilada oo dadkiiba sintay markay taasi dhacdo dal waliba wixii uu la soo baxay isaga kaydsanaya oo dhintaysanaya maxaynu yeelaynaa ba markaa inoo furan inaga sida agaasimaha guud uu sheegay 8 milyan hektar oo dhulaba si wacan Soomaaliya loo beeran karo soo saas ma hagas in ka badanna hadda teknoolajiyada cusub ayaa saamaxaysa in la beero dalka Yemen haddaad eegto buuraha wax lagu beero waad yaabaysaa walaalayaal waxaynu rabnaa Soomaali haddaynu nahay inaynu inagu isku noqono soddon sano bay hay'adahan inala joogaan FAO
iyo World Food Programka iyo imaarkaysa kuwa kala duwan maalin dhaweyd mas'uul ka socday hay'adda OCHA oo gurmadka u fidisa dadyoga barakaca waxay noo sheegeen inay soo xidhayaan bishan xafiiska Ciraaq ay ku lahaayeen soo Ciraaq garan maysan berdhood xaaladda u sayray soo garan maysan magaalooyinka Mosul iyo ay ka mid tahay in dhow gabigooda dhulka la dhigay xaalad bini aadan oo degdeg way ka baxeen waxaa ka saartay dawladdoodii iyo dadkoodii iskaashaday xafiiska waan soo xidhanayaa innagu haddii aynu xaalad gurmad iyo degdeg uun ku jirayno iyo haddaynu wax soo saarayno horta innaga inaga faqata waxaan rabaa inaan idinla wadaago dawladda maxaa uga qorshaysan arrimaha oo u yaalla shaqo madaxweynaha qaranku wuxuu keenay aragti siyaasadeed ra'iisul wasaaruhuna siyaasaddaas intuu barnaamij u bedelay uu geeyay baarlamaanka marka arrimaha dawladda waad ka dhegsantihiin Soomaali heshiis oo dunidana heshiis la laakiin mawduuca maanta sharkan uu daaran yahay wuxuu hoos imanayaa qodobka la yiraahdo isku filnaanshiyo dhaqaalo dhaqaalaha intaad ka firin horta cuntada inaad ku filnaato weey arrinta waxaa ka qorshaysan in wax weyn laga qabto horta number 1 biyaha haddii aan la qodin ceelashii oo la kaydin oo dhaamam la samayn beerna lama fali karo xoolana lama waraabin karo dadna ma noolaan karaan arrimaha waraabka weey wasaaraddan iyo wasaaradda biyaha baa si dhow isaga kaashanaya arrimaha cadowga markii hadda dagaalku uu ka dhacay Hiiraan iyo Galguduud iyo meelaha kaleba meesha u horeysa ee abaaran waxa xagee ceelka ayay ku dumiyeen dadka qofka marka ceelka ku dumiso noloshiisa ka dumiso waxa jira barnaamijyo waaweyn oo cadcad oo malaayiin boqolaal milyan ay ku baxayaan oo biyaha wax laga qaban doono laakiin wuxuu ku imanayaa iskaashi ay iskaashanayaan wasaaradaha kala duwan ee dawladda iyo dadka loo adeegayo beeralayda ee hawshan nooga cilmi badan nooga dadaal badan garoonkiina ka shaqeynaya walaalayaal sida agaasimuhu inoo sheegay isagu xilligaas uu ka soo jeeday xilligii warshadaha waaweyn iyo beeraha waaweyn iyo ilaha dhaqaalaha ay dawladdu gacanta ku hayn jirtay waa la dhaafay adduunku halkaa uu ka guuray doorka dawladdu waa fududeeye waa adeege waa kaabageliye wasaaradahan waxaa la rabaa inay ragga miro iyo ay ka mid yihiin anigu beerta miro waa tegey weligay waa markii ugu horreysa beerarka ahayd bayntaa le saacadaan dhex lugeynayay 1,000 beerood oo noocaasa oo rag iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaanu ahamiyad weyn siin doonaa wax soo saar gacanna waxbaa lagu soo saarayaa gacanna cadowga la iskaga celinaya ama masago ha noqoto iyo haruurkii ka soo baxayay bay iyo bakool ama ha noqoto digirtii shabeellooyinka ilaa iyo ceelbur laga soo saarayay dhulkii cadowga haysta barakacan